السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم سي رمضان مبارك. horta dee waxaan u naqaynaa anagu waddanka maka joognayna ramadaan kariim baa la odhan jiray. dee beryahanunba waxaan maqlaa iyadoo adugu sanadadii ugu dambeysay laleeyahay ramadaan mubaarak baa la yidhaahdaa. ma garanay goortii la bedelay laakiin labadaba waa odhanaynaa ramadaan kariim ramadaan mubaarak. waadi salaamay asxaabay. waxaan rajeynayaa qof kasta meeshuu joogo inuu caafimaad qab iyo nabad qab uu ku haysto iyo ramadaan qabow oo wanaagsan ayaan idin wada rajeynayaa. so waxaan idinla maxaa usoo laabtay meesha maanta. dee adduunyada wax ka socda waa aragtaa. adduunka wax ka socda qulubaa gedi meel dagaal meel maxaa dhahday anugu meelaan islaada maanta meelba habiya maba garanayaba. meel kastaba dagaalba ka socda. meel kastaba dagaal iyo problem iyo waxbaa ka taagan. yaa adduunyada waxaan u malaynayaa anugu dee qiyaamii baa soo dhow. yaa de horta bilaadanku waxay idhahdaa markastaba qiyaamii baa soo dhow. tan iyo maantan garaadsaday ilaa maanta taagana waxaa la idhahdaa qiyaamii baa soo dhow. ma fahanteen? maxaa dhahday runtaan idin sheegaya markaan yaraa la odhan allah qiyaamii baa soo dhow run baan moodi jiray. waxaan sodhan jiray bismillahi raxmaan waan biqi jiran jiray allah qiyaami dee ciyaal markaa tahay ma aragtaa qiyaamii baa soo dhow qiyaamii baa soo dhow qiyaamii baa soo dhow bise sanadkatuna ma maanta ma berri baa ma maanta ma berri baa ma saacadaa soo socdaaba waxaad stress baad qaadaysaa. laakiin de markii la weynaaday ee wax la bartay ee wax la kala ogaaday dee qiyaamaha maxaa dhahdaa saacadaheedii la sheegay. dee maxaa dhahday still dadku bilaadanku waxay leeyihiin qiyaamii baa soo dhow qiyaamii baa soo dhow. ilaahay subxaana watacaala baa waqtigu dhacayo saacadihii. laakiin dadku markay leeyihiin qiyaamii baa soo dhow waxaan anigu dadkan saa u eegayo dadkii waxay farab ka taagan yihiin nolosha. dhibaatada adduunka ka taaganba dadkii khaatiin ka taagan yihiin. waayo waagii ilaahay keenaba waxbaa dhacaya. hadda waqtiyadii hore dee wax maxaa dhahdaa dee wax way jireenoo adduunyada dhibaata kama dhammaato. laakiin sida iminka dee aada moodid tusbax go-ay inay tahay may ahaan jirin. waqti dadku dunu iska yara qabowdahay haddana meel kale wax ka keena qarxaa. laakiin iminka adduunkii koona ilaa ka koona wuu ololaya. ilaah baana ku cilmi qaba cilmigiisa ilaahay baa og waxay sababahan u dhacayaan oo dhan. inagu waxaynu leenahay ilaahu rabbigoo naga badbaadi. ilaahu rabbigayoo maxaa dhahdayey kuwa soontooda iyo salaadooda iyo maxaan camalkooda aad ka aqbashid ilaahu naga dhig rabbooda weyne waaxide iyo kuwada maxaa dhahdaa u dambi dhaaftidba. intaa meerkaan kasoo gudbo waxaan yara istaagi rabaa oon rabaa inay wax yaro faahfaahin annaan ku yaro darsado wadamadii muslimiinta waata dhibaato ka taaganta. odaygii shalay odaygii maxaa shiicada ahaa shalayt waata lagaga soo qaaday. wuxuu ahaa 86 jir buu ahaa. 90 waxbaa uga harsanaa 4 sano. dee intaasaa cimrigiisu ku ekaa. dee adduunka waxba kaga mutigin. odayga horta waa kaga soo qaadeen qol. marka anigu boynkan u socdo waxaan la yaabanahay anigu muslimiintii horta dee nimankii horta wax sheegayay ee lahaa waxaan nahay leader ama hogaamiyaal baan nahay. waxaan shilciyey ee sinxigan ballaaran saa u dhex dhigay ee heef lagala odhanayo markiiba ayaan garan waayay. dadkan ma waani fikirin maxaa u diiday dadkan inay meelaha ku dhuuntaan oo meela ay ku dhuuntaan iyo meelay isku qariyaan iyo afkana way ka hadlayaan oo cadowgii isku soo jeedinayaan. hadhowta marka loo soo jeesana mulf walaa la boodaya markiiba. inkastoo dadkan la laayay cadowgooda uu ku hoos noolaa
oy cadow badan ay samaysteen oo dadkooda ah oo wadankooda ah iyagu dadku iyagaa isku diray dadka haddana iyagu dadkii isku diray caqli meesha ma yaallo marka nimankan kale dee iminka dee adduunka ka fadhiyi leeyahay ee meel walba saa dafu odhanayana yaa iyagana ilaahay baa u maqan ilaahay baa u maqan maxaa dhahday waxaan berigii 2011 markii daaraha la qarxiyey ayaa meelba waxaan kaga akhriyay joornaal lasoo saaray inta wadani la rabo in la burburiyo oo waqtiga 2001 in wadamada la baabiinayo waqtigaasi ka bilaabeen laakiin almost done way baabiyeen yaa u haray idu hadhay iminka ma jirto ciraaq bay ka horreeyeen waxaa dhaqdaayay qadaafi baa lagu xigsiiyey allahuma salli calaa maxamed yaa ku xigay wixii oo dhan way laayeen gidi kamaan waa la laayay marka horta de waqtiyoodii waa dhammaadeen laakiin markaad dadkaaga isku dirtid dadkaaga aada dhibtid dacado iyo balaayo kastaba waa ku cunaysaa iminka laakiin qoladan shiicadee laga dilay odaygii yaraa laga dilay carabtii bay kala hafteen meelahaasay wax kusoo tuurayaan daarii dhaadheere carabtu daawanaysay ee qosolku jabkahabay ka burburinayeen meelama bugtaa waxbaa ka gubanaya meesha imika waxaa laleeyahay meesha yaraa bensinkii soo mari jiray waa xidheen adduunyada waxa weeye xaalad dad badanoo ku barxidhmay middle eastka waa lasoo saaray waa lasoo sheegay dad dhoofi kara ma jirto dad ka bixi kara diyaaradihii dee waa gantaalii baa dee cerka ordaya marka xaaladuhu cerkay marayaan cerka allaha inoo sahlo waxaa dhahdayay laakiin qoladan shiicada horta dee waa dad muslim sheeganaya siyaabay u dhaqmaana siyaabo saxsan maaha oo dee waa laga soo horjeedayo dee asxaabtii wax ka sheegayaano waa nacdalayaano nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bay idhaahdeen waxyigu isagoo kumid soconi cali bay ku socotayo waxyaabaan madaxa gelin bay ku dhaqmaan marka anugu waxaan soo ogaaday shiicanimadani waxaan cidda u gudbisay waa koofiyad yar baa layidhi nin koofiyad yar ahaa waqtigii asxaabihii koofiyad yar ahaa oo waqtigii meelaha la xoreynay ahayd oo diinta islaamkana sheeganaya marma isqarin sheekadaa si fiican ninkaa uma haya siduu dee isagoo diinta islaamka haysta ayuu haddana hoosta ka ah maxaan dhahdaa yuhuudi baan malaynaya daatana qoladan shiicadan oo markaa maxaan dhahdaayay dee boqortooyadoodii maxaa dabka cabuudi jirtay waxaa la jabiyey oo laga baabi'iyey oo yara ciil qaba oo haddana la muslimiyey ayuu mabda'an ula tegay baa layidhi sheekadan buu la tegay wuxuu arkay inay dad wari yara ciilsan yihiinoo dee maxaan dhahdaa muslimiinta shawise u yara cadhaysan yihiin haddana muslim yara noqday dabeetana wuu ka faa'iidaystay dadkan waa shadaadiin weeyaan dabeetana sheekadan buu keenayba iyaguna way rumaysteen iyagu wax xalaal waxay ka ogaayeen waxay dee madiina iyo siyaaban oo dhan may garanaynin waa loo keenay diinta isaguna tan u keena waa ka dee madaxoodii mijii rogay mabda'an ay ku dhaqmaan oo dhan koofiyadar baa u keentay oo ka dhaadhicisay waqtigii asxaabihii markii iyaga maxaa dhahday la musliminayay sidii baanay ugu dhegan yihiin horta in yaroo sunii waa ku jiraan baa layidhi way degan yihiin sunahana iyaga cagta dusha kaga haya baa layidhi oo sunaha halkaa joogaa ma neefsadaan baa layidhi ma fahanteen
shiicada u badan markaa shiicada ninkaa koonfidartaabaa rogtay oo jihaadi ka waashay okay maxaa markaa maxaa dhaqda ayay adduunkan soo wareersan muslimiintii waa ducaysanaysaa ducadii ay ducaysanaysay intaas oo sannadood muslimiintu maxaa dhahday ducadoodii ma qalbigooda madow maxaa khaldan waddan kasta oo muslina oo ducaysanaya ducadu inay kacdo de ilaah baa meel u dhigay ducadii kolle meelba ilaahay u dhigay inay sanadada soo socda ducadii dee loo soo dayn doono iyo in kale allahu yaclam laakiin waddan muslina oo ducaysanaya oo ducadii u kacday anugu kolle ma arkin anigu markaa waan ka shakiyey dadkii muslimiinta ahaa qalbigoodii baa uskag noqday qalbadoodii baa uskag noqotay waan is ogey inaa xasuusan tihiin waqtiyadii nebi muuse calayhi salaam ayaa waxaa la yidhi way ducaysanayeen duco something maxaa mooye waxay ka ducaysanayeen marka ma xasuusni eega daday haddaad dib wax u eegtaan soomaaliya ducooyinka markay kici waayeen waxbaa khaldan the something is not right eeg waxaa la eegaa markay wax ku haystaan wixii soo dhacay baa dib loo baadhaa anigu imka maxaa dhahdaa xadiistan ka maqlay waqtigii nebi muuse calayhi salaam waxaa la yidhi waqtigaa qoomkii nebi muuse iyo atink walaalkii haaruun adigu qoomkaas oo dhan markaa waxaa la yidhi way ducaysanayeen I don't know dhibkii ka ducaysanayeen ma garanayo waxay rabeen markaa ma garan karo xadiiska fuli mahayo marka waxay ducadii baa la aqbali waayey way ducaystaan nag waxba waa yacni block baa laga saaray ducadii maxaa la yidhi muddo ayay ducaysanayeen baa la yidhi ducadii waa socon weyde markaa maxaa dhahdaa nebi muuse baa ilaahay subxaana watacaala usoo waxyooday markuu usoo waxyooday baa wuxuu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yidhi maya nebi muuse baa wuxuu ilaahay intuu gaar u baxay buu ilaahay baryay wuxuu maxaa ilaahay rabbigu ducada nooga aqbali weyday marka nebiga ilaahay usoo waxyooday wuxuu ku yidhi ilaahay subxaana watacaala nebigiisii buu la hadlayo wuxuu ku yidhi waxa ku jira addoomadayda halkaa fadhiya addoon aan i rumaysnayn intaasoo sanadii baryayseen ducaysanayseen addoon aan i rumaysnayn ayaa ku dhex jira markaa nebi muuse calayhi salaam wuxuu ilaahay subxaana watacaala weydiiyey ilaahayo addoonkaa ii sheeg ilaahay subxaana watacaala siduu ummaddiisa u jecel yahay siduu bini-aadanka uu abuuray u jecel yahay cajiib ilaahay subxaana watacaala wuxuu ihi maya wixii la qariyay addoonkiisiiba wixii la qariyay mar raba addoonkiisaas in maxaa dhahdaay uu ka shifmo uu ka noqdo ummaddaa ku dhex jiro tuka baalcad inuu ka dhex noqdo ilaahay subxaana watacaala ma rabo maya buu ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi waa addoon idinku dhex jira mana kuu sheegayo hebel iyo heblaaye wuxuu yahay laakiin waa addoon ummaddaa aad nebiga un kaaga dhigay ku dhex jira weeyaan qalbiga igama rumaysna nebi muuse calayhi salaam wuxuu kusoo laabtay ummaddiisii waa la suu yimi ducadii baa las yidhi haddana la duceeyey wuxuu yidhi waryaadhahe ducada waxaa laynooga aqbali waaye qof baa inagu jiraan ilaahay rumaysnay kii ilaahay ka hadlayana waa ku dhex jira dadka war qof aan ilaahay rumaysnayn baa inagu dhex jira ee qofkaasoo naga baxa de hadduu baxo
نين قفك وبغي مقتة هذا وحش اللي هذا بحديدنا ولا قدلي وحنا واكن كده كنا محنا نتشب نقول نقطة مو بقينه مو بحينه تذكي بس قد حشر لينكي قلبي يسوي إلهي كبري الله إلهي يا ربك يا أدو جعيس إنك إلهي وصول إلهي وصول لابتا مركا إن يركدب وحي الربين مرابي الربين سمتي وحبي دوني وحي يكدو عسني إلهي وسي دابتنا نبي موسى هدنا إلهي ولا هضلي محمد وحي ولا هضلي دابتنا وحوري يا الله ساي ساسا كوري دادكي قفكينا نغمو دح بحن دعاتينا واد نغا أقبشي محاس بدلي مركاسو إلهي سبحانه وتعالى وحوري أدونكي ويسا نقطة نكاسان دعاتيد كاقبل مفهمت أدونكي ويسا نقطة مركا بوينت كان وجهيدو وحوي دين صومالي ناهي هدين هاي مسلمين waxay naga buuxa oo ducooyinkeena loo aqbali lahayd oo farash loo u furmi lahayd ummadii muslimiinta ahayd ee ciqaabta ugu dhex jiraan waxa inaga buuxa waxa la 2 bilyan baynu nahay 2 bilyan kaasi macquul ma aha in ducada la aqbali waayo macquul ma aha waxa inaga buuxa dad midda muslim sheeganaya إنه مسلم مودينو أينو إيك أينو لا تكنية أو حشكنا لا قبنية أو صدقة بحصنية أو ملك سين يقول دحشرة أو ملك السمح هذا لا تاجن أي إن يقول دحشرة وقلوب تود الصححين وذا دبان لا وذا دم يتذكر مكان دعيني سه والشيغة حديثا الصوقات حديثا حصوصية dadka inaanu ilaahay aqbalaynin ducooyinkeena hadduu qof qalbiga ka buqo inagu dhex jiro qofaan ilaahay rumaysan hadduu inagu dhex jiro hadduu inagu dhex jiro qofaan ilaahay rumaysnayn oo laakiin halkaa fadhiya oo tukanaya 5 salaadood tukanaya hadduu inagu dhex jiro aan ilaahay rumaysnayn war ducada laynaga aqbali maaye war ilaahay usoo noqda وقلبينا إلهي أفرع وإلهي عبودة وإلهي اسكوها الليا وإلهي موياني عدك لها لشيركي لنا حد إنا يسدع وداتدو كدعيان علي كوانيان ضدك ويحصوصيان وحيابي صور دعي موش إني كدو الوريقان قوار بها كان أورطايو حشاف كيوا كان عاي قوار بها كان أورطايو نين كيدي بداقاتا كتورتا dumarku inay maxay dhahdaa meherka jabiyaan dumarku waa inay sidaa noqdaan dumar baa xadiistiinii barateen iyo xooggiinii baa ku sii dayseen war dumarkan ka fuqa oo bal dadkan ka dhaadhiciya diinta sida saxda uga dhaadhiciya sida saxda ah uga dhaadhiciya oo ducooyinka saa lagu aqbalo ee wanaagsan dadka bara وصفي عنها إلهي سبحانه وتعالى هالله بريو إلهي سبحانه وتعالى صفي عنها الله بريو قلبي قهدوك بقو قلبي قهدوك مدوي هاي قلبي قهدوك تاغين قفك لهبل وحلال وحلي نقاق بليا بجرتو وحلال وحلي نقاق بليا بجرتو marka hal iswada saamaxo aniga hoodahaan maxaa dhahdaay intii bilaadan dhib ii geysatay waa saamaxa markasta waa saamaxa markastoon xasuusta amaan tukado ama ayaana tukadeen qalbigan ka saamaxa afkan ka saamaxa waxaan ilaahayo waan saamaxay ciddii allaala ciddi dhibaato ii geysatay ama ha yaraatee ama ha weynaato laakiin waxaan sheegaya dadka dhibka ii geystay ilaahay usoo laabta
ilaahay dembi dhaaf weydiista oo balaadan aad ku dhex jirtaan ka baxa. quluubtan mindida xaasidnimada ku taagan tahayna iska jara. ilaahay soo laabta. adduunkan waxba laga faa'iidi maayo. qofna risaaqada ilaahay qoray kamaysta hor istaagayo. wanaaga qofka ilaahay siiyey kama hor istaagi kartid. marka xaasidnimada iyo jelasnimada qalbiyadiina ka masaxa oo ilaahay ka barya inuu ilaahay qalbigiina ka masaxo. sidaasaan idinkaga tegayaa. khayr baan idin rajeynayaa. peace.